Xukuumada Somaliland gaar ahaan wasaaradda diinta iyo awqaafta ayaa joojiyay bandhig faneed qorshe u ahaa in lagu qabto magaalada Hargeysa kaas oo ay qabanayeen fanaaniin ee horkacayso Fannaanada Kiin Jamac oo maalmo ku sugan magaalada Hargeysa. Warqad ka soo baxday xafiiska wasiirka diinta iyo awqaafta ee Somaliland Sheekh Cabdirasaaq Xuseen Albani isla markaasina lagu socodsiiyay mulkiilaha iyo maamulka hotelka la qorsheeyay in lagu qabto bandhig faneedkaasi isla markaana lagu ogeysiiyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha taliyaha ciidanka booliska iyo sidoo kale barasaabka gobolka Maroodijeex ayaa lagu sheegay in wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Somaliland oo wakiil uga ah dalka arrimaha diinta iyo ilaalinta dhaqanka suuban ay joojisay kaas oo ay qabsan lahayd Fannaanada Kiin Jamac waxaana ay guddidu sheegtay inaanay jirin ogolaansho ay bixisay guddida awoodda u bixinta ruqsadaha bandhig faneedada sida ku cad xeerka ilaalinta anshaxa iyo nabadgelyada ee xeer lambar 12/2012. ugu dambeyntii waxaa xusid mudan in joojinta bandhig faneedkaasi ee dhanka xukuumadda ka timid ay ku soo beegmasay xilli hadalhayn badan ay ka taagneyd bandhig faneedkani oo ay Fannaanada oo qurbaha ka timid ay qorsheynaysay inay kulmiso boqolaal shacabka reer Hargeysa ka mid ah. waa Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dhambaal wararka muqbahiya caalamka Samniis Hargeysa. maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo. Macmiil ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul iyo hadiyado kale oo qaaliya sida mobaylo, Wi-Fi, geel, ari, dahab, lacag iyo internet bilaasha. haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleyste isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo e-dahab. kaga shubo e-dahab xidig 1 eber 1 4 gees. nasiib wanaagsan.